السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا مانتا waxaan ku soo qadan doonaa ahmiyada ay leedahay barashada luqad cusub iyo talooyinka ka saacidi kara barashadeeda. Fadlan ku soo dhawaada daawadayaal mowduucina maanta. waqtigan iyo zamankan aan joogno waxa fara badan baahida loo qabo barashada luqad cusub ama inuu qofku yaqaano wax ka badan hal luqadood luqadiisa hooyo luqad aan ahayn inuu yaqaano ayaa aad loo qiimeeyaa sababtoo ah barashada luqad cusub waxay qayb weyn ka qaadataa waxay ahamiyad iyo muhiimad weyn u leedahay horumarinta shakhsiyadda qofka marka uu doonayo inuu horumariyo shakhsiyadiisa qof ahaaneed cilmigiisa aqoontiisa thaqaafadiisa iyo dhaqankiisa way aragnimadiisa waxa muhiim ah inuu yaqaano luqad kale sababtoo ah waxa uu qofkani doonayaa inuu faa'iido xog iyo macluumaad fara badan saas darteed waa inuu helaa wasiiladii uu ku gaari lahaa xogtaas uu ku faa'iidi lahaa sidoo kale muhiimadda ay leedahay inuu qofku yaqaano hal luqad wax ka badan waxa ka mid ah cilaaqaadka iyo xiriirka wanaagsan uu qofku la yeelan karo dadyowga kale sababtoo ah waxa la macaamili karaa dadyow kala duwan dadyow luqado kala duwan ku wada hadlaya saas darteed dadkaasi mar walba ay taqaan luqad kale ama luqad dadka ay ku hadli karaan waxa ku fudaanaysa inaad cilaaqaad iyo xiriir wanaagsan la yeelatid sidoo kale luqad cusub ama inaad taqaanid hal luqad wax ka badan waxay fursad u tahay badnaanshaha fursadaha shaqo aad heli karto mustaqbalka shirkadaha iyo ganacsadayaasha bixiya fursadaha shaqo waxa ay dadka markay shaqooyinka codsiga shaqada la gudbisanayo waxay tixgeliyaan qofka inteeba luqad yaqaana intee luqad ku hadli karaa taas waa muhiimad weyn bay saaraan sababteed haddii aad rabtid inaad mustaqbalka shaqooyin fiican aad heshid shaqooyin waxtar leh inaad heshid waa inaad hadda guda gashaa inaad baratid luqad sida luqadda ingiriis oo kale carabi oo kale isbaanishka faransiiska iyo luqadaha kale oo muhiimka ah haddaba haddii ay laga maarmaan tahay inuu qofku barto luqad cusub waa maxay talooyinka qofka ka saacidi kara inuu barto luqad ku cusub haddaba halkan waxaan kugu soo gudbi doonaa dhowr arrimood kuwaasoo kaa saacidi kara inaad baratid luqad kugu cusub qodobka koowaad garowshaha hadafka aad ka leedahay luqadda qofka haddii uu cayimo ama qeexo hadafka uu u baranayo luqadan waxay ka saacidi doontaa inuusan qofka ka niyad jabin luqadda uu baranayay oo uu si joogto ah u wado barashadeeda ilaa uu ka natiijo gaarayo talada labaad oo aan siinayo qofka baranaya luqad cusub waxay tahay kula sheekayso naftaada luqadda habkani waxa uu nafta u noqonayaa leylin iyo tababareed lagu tababarayo ku hadlidda luqadda iyo in ay xifdiso erayo badan iyo jumlado cusub talada saddexaad waxay tahay u isticmaal luqadda hawlaha nolol maalmeed u isticmaalidda luqadda uu qofku u isticmaalayo hawlihiisa nolol maalmeed hadday noqoto akhrinta casharada sheekooyin daawashada filimaanta soo adeegidda oo kale kuwaasi waxay qofka ka caawinayaan in uu korokac ku dhaco heerka iyo mustawaha uu ka joogay luqadda waxa dhici kara markii uu luqadda bilowga ku ahaa heer buu ka joogo qofku luqad Soomaaliya wax yar buu ereey ka yaqaanay ku hadlidu waa ku adkeed laakiin markii uu buug badan akhriyay ama uu filmaan badan daawaday luqadiisii mar ka dambaysa way kobcaysay marka taasi waxa ka caawin kara inaad maalin walba si joogto u qabatid laakiin haddaad maanta qabatid berina iska deysid luqaddu way kaasi lumaysaa marka waa inaad jadwal marka u samaysatid maalin walba waqti gaar ah siisaa inaad luqadii baragti gareysid sidoo kale isticmaalidda aad u isticmaasho luqadda hawlaha maalmeed waxay faa'iido u leedahay inuu qofku ilaawin ereyada soo xifdiyay sababtoo ah ereyada maalin walba isticmaalaya taas ka caawinaysa inuu qofku mar walba maskaxdiisa uu ku soo xasuusto ama si dib yar uu ku soo xasuusto ereyadii uu soo xifdiyay talada afaraad u bar luqadda sida ilmaha ay u bartaan oo kale qofka marka uu baranayo luqad ku cusub waxa ka dhacaya khaladaad sida inuu khaldo dhawaaqa ereyga oo kale laakiin waxa looga baahan yahay
inuusan isdhiibin oo uusan ka harin barashada luqadda tusaale ahaan hadduu qofku dhaho marka aanu luqadda ku hadlayo dadku igu qosliyaan way igu maadaysanayaan saa darteed luqadda inaan barashadeeda iska dhaafaya waa inuusan qofku saas dhihin haddaba haddaan tusaale usoo qaadano ilmaha yarka marka uu bilaabo inuu luqadda ku hadlo badanaa waxaa aragnaa inuu ereyada jajabiyo oo ereyadiisa si fiican uu isugu dhawaaqi karin laakiin waxa uu joogteeyaa ku dhawaaqida ereyga ilaa uu ereyga si saxan ugu dhawaaqayo ugu dambeyntii marka qofku waxa looga baahan yahay marka uu baranayo luqad cusub inuu dulqaad iyo adkaysi muujiyo si uu natiijo u gaaro talada shanaad u dhageysiga luqadda si fiican dhageysiga luqadda aad si fiican u dhageysatid waxay ka caawinaysaa sixitaanka dhawaaqa ereyga inuu ereyga dhawaaqiisa asaxdid sababtoo dhowr jeer ayuu dhegtaada ku dhacay maskaxdaada ayuu ku jiraa sidaa darteed ku hadalkiisa uu ku fudaanaya sidoo kale wuxuu ka caawinayaa dhageysigaas inaad ereyadii jumlada u isticmaashid qaab saxan iyo inaad ogaatid makhaariijta ay xuruufuhu ka soo baxaan xaraf walba meesha uu ka soo baxa ogaashihiisa ayay kaa caawinaysaa marka haddii tahay waxaad dhegaysanaysid muuqaal ama maqal hadduu yahay waa inaad si taxadar leh u dhegaysataa hadhow wuxuu kaa caawinayaa arrintaasi marka dadka luqadda u dhasha la hadlaysid oo kale inaad si fiican u fahantid hadhowna aad intaqana jawaab celin u samayn kadid marka taas si fiican ugu dadaala dhegaysiga luqaddan waa la badiyaa muhiim weeye sababta ilmaha markuu yahay muxuu sameeyaa luqadda isla markiiba kuma hadlo wuu dhegaystaa waalidkiis iyo intaqana walaalihiis markuu ku hadlay luqadda ayuu weeleenayaa erey badan ba maskaxdiisa galaya hadhow ereyadu bartay wuxuu bilaabay inuu ku hadlo saas ayuu luqadda ku bilaabaa ma jiro luqad marka horeyso ku hadalkiisa lama barto luqadda marka hore dhegaysiga u muhiimsan dhegaysiga qofka u muhiimsan xataa qoraalka iyo mataqan akhrinta wax ka sii muhiimsan dhegaysiga sababta abuuritaanka mataqana makhluuqa saa qofka ugu horeeyo ilmaha yar markuu dhasho isla markii qoraalka lama baro ama akhrinta lama baro ama kuma hadli karaba laakiin muxuu sameeyaa wuu weelayaa wixii uu xifdiyay erey badan buu xifdinaya markaas wuxuu bilaabaa inuu luqadda mataqana uu ku hadlo marka dhegaysigu waa wax muhiimsan weeye inuu qofku barto luqad cusub marka intaas ku soo gabagabeyn doonaa casharkeena maanta daawada haddaad ku cusub tahay channelkan ama uu yahay markii ugu horreysay inaad soo boqoto fadlan like saar kana mid noqo asxaabteena channel